waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka oo ku amray ciidamada xaqiijinta ammaanka guud ee dalka faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya kulan ra'iisul wasaare Roble la qaatay xildhibaanada lagu doortay Ceelwaq iyo Muuse Buuxi oo ka hadlay doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya weerarana musharaxiinta qaar qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddana nagu cusubtaan ugu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24 saacan u baahin aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkana sii share garay laakiin waa inuu muhiim daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen faahfaahsan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ku amray ciidamada inay xaqiijiyaan ammaanka guud gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ka hadlayay weerarkii ka dhacay bar control oo ku dhow agagaarka kilometer 4 ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyntii cambaareeyay qaraxaasi isagoona eeba uga baryay caafimaad degdeg ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaas gudoomiyaha ayaa faray ciidamada ammaanka inay dadaalkooda dheeriga ah muujiyaan lagana hortago weerarada abaabulan gudoomiyaha Aadan Madoobe ayaana sidoo kale faray laamaha ammaanka inay isdhigan isla markaasna xoojiyaan amniga guud ee magaalada Muqdisho oo la filayo in lagu qabto doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli kal hore sidoo kale gudoonka baarlamaanku ay u soo saareen war saxaafadeed ay ku cadeynayeen habka ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya u sugayaan amniga magaalada isla markaasna lagu farayay nabad sugidda Soomaaliya inay ka hortagaan weerarada abaabulan oo ay dhagarqabayaashu doonayaan inay ku qalqalgeliyaan amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho hase yeeshee munaasabada khudbad-jeedinta oo bilaabanaysa awgeeda ayaa kooxda Al-Shabaab oo weerarka fuliyeen agagaarka isgooska kilometer 4 oo kamid ah goobaha laga aadayay halka munaasabadu ay ka dhaceysay Avazione geesta kalena faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan kulan ra'iisul wasaare Roble oo la qaatay xildhibaanada lagu doortay Ceelwaq ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay 16 xildhibaan ee dhawaan lagu soo doortay degmada Ceelwaq ee gobolka Gado isagoona ugu hambalyeeyay mas'uuliyadda qaran kuna booriyay inay dalkooda si hufan ugu adeegaan kulankan oo ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaana waxa soo xaadireen dhammaan xubnaha 16 ee Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado ku matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaanadan ayaana ra'iisul wasaare Roble uga mahadceliyeen dadaalkii isaga dhankiisa ku aadanaa uu ku bixiyay sidii Ceelwaq ee doorasho ugu dhici lahayd isla markaasna iyagu ugu soo bixi lahaayeen waxaana xubnahan ee ra'iisul wasaare Roble ku amaaneen kaalintii uu ka qaatay hogaaminta doorashooyinka dalka kulankan ay yeesheen ra'iisul wasaare Roble iyo xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwaq ayaana yimid xilli gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe uu fasaxay isla markaasna aqoonsaday xildhibaanada lagu soo doortay degmada Ceelwaq taa oo keentay in meesha laga saaro xildhibaanadii lagu soo doortay degmada Garbaharey ee isla gobolka Gado sax ahaanshiyaha xildhibaanadan ayuu gudoomiyaha golaha shacabka u codsaday arrimo ay kamid ahaayeen in doorashadoodu ay qabanqaabiyeen kana qayb galeen guddiyada doorashooyinka Jubbaland iyo kan heer federaal sidoo kalena uu daafuray madaxweynaha Jubbaland ra'iisul wasaare Roble uu hambalyeeyay markii ay soo baxeen xubnahaasi lagu soo doortay degmada Ceelwaq maadaama ra'iisul wasaaruhu uu ahaa hoggaanka ugu sareeyay doorashooyinka dalka si kastaba xubnahan cusub ee lagu soo doortay Ceelwaq ayaana waxa ay ka soo muuqdeen kalbadhigii koowaad ee khudbad-jeedinta xubnaha u taagan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya sidoo kalena waxa madashaas aanu xaadirin xubnihii lagu soo doortay degmada Garbaharey oo muuqdaan kuwa ku qancay go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya وهاجا daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa Muuse Buuxi waxa uu ka hadlay doorashada madaxweynaha dowladda Soomaaliya weerarna waxa uu ku qaaday musharaxiin qaar madaxweynaha Somaliland Muuse Buuxi Cabdi ayaa ka hadlay doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena Muuse Buuxi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in mas'uuliyiinta ka soo jeeda Somaliland ay xilal u doontaan Muqdisho madaxweyne Muuse Buuxi ayaana dhaliilay maalinta lagu aadiyay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 15 May taas oo ku aastaysan maalintii la aasaasay ururkii xornimo-doonka Soomaaliyeed ee SYL Soomaaliya bishan 15keeda ayay u aasteeyeen in ay qabsadaan doorashada madaxweynaha inay isdoortaan oo nabad galaan ayaan alle uga baryeena
laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa 15 markii ay doorteen waxay ka shaqeeyeen in dib dambe aanu isku soo sheegan ayuu yiri Muuse Biixi. Wuxuu intaasi ku sii daray in 15 May waxay noo ahayd maalintii Israel kadib waxay u bixiyeen maalinta dhalinyarada, maantana waxa ay ku beegeen maalinta madaxweynahooda. waxa iska galayana malahan oo taariikh iskuma lahan waana ka bareereen ayuu yiri madaxweynaha Somaliland oo hadalkan ka jeedinaya xaflad ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa si gaar ah u duray musharaxiinta ka soo jeeda Somaliland oo u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo ay ku jirto Fawziya Xaaji Aadan oo ah gabadha kaliya ee musharaxiinta ku jirta. sidoo kalena waxay aasaastay jaamacadda uu khudbada ka jeedinayay Muuse Biixi. sidoo kale Muuse Biixi ayaana kuwa guul dareysta ku tilmaamay dadka u dhashay Somaliland ee xilalka ka haya dowladda Soomaaliya, waxaana dadkaasi la mid ah buu yiri dadka reer koonfurka ah ee aaminay in siyaasiyiintaasi ay Somaliland matalaan. waxayna casnimo haysataa dadka Somaliland u dhashay ee maamuuska ku haystay dhulkooda oo qaarkood jaamacado halkan ka dhisay ee inta xamar tageen dhahaya waxaan matalaynaa Somaliland oo baarlamaanka ayaan doonaynaa waana codeynaynaa ayuu yiri Muuse. wuxuu sheegay in Muqdisho ay joogaan dad culimo iyo caamo leh oo aqoon diimeed leh balse ay la mid noqdeen kan Somaliland ka tagay ee loo dhaariyay inuu Somaliland matalayo. qolada ay u codeeyaan dadka naga tagay ee Muqdisho jooga dhibaatada ka gaarta reer Muqdisho annaga naguma eedi doonaan kuwa Somaliland ee xilalka u doontay Muqdisho waa noo gafeen ayuuna hadalkiisa ku sii daray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi. si kastaba hadalka Muuse Biixi ayaa imaanaya xilli la filayo in 15 bishan aan ku guda jirno oo ku beegan bilowga toddobaadka soo socda ee maalinta Axadda lagu wado in Muqdisho lagu qabto doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaana waxaa ka tirsan xubno dhowr ah oo ku matala gobolada waqooyi ee Somaliland dhanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guulad Qadar, gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xubno dhowr ah oo xildhibaano iyo wasiiro iskugu jira. inta badan Somaliland ayaana si weyn u dhalisho xubnaha ka soo jeeda deegaanadeeda ee xilalka u soo doonta dowladda federaalka Soomaaliya. hase yeeshee xubnahan ayaana zaamiga ay ku qaateen xilalka waxa ay qayb ka tahay inay ku matalaan dhanka gobolada waqooyi ee Somaliland ayaana sidoo kale horay go'aano ku aadan in la xiri doono ugu soo rogtay dadka xilalka ka soo qabta dowladda Soomaaliya, waxayna dhowr mar sidoo kale la sheegay in xabsiyo dhigtay xubno siyaasiyiin u badnaa oo marar xilal ka soo qabteen gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kalena waxay inta badan madaxda Somaliland si weyn uga hadlaan xaaladda siyaasadeed ee isbedelada la xiriira ee ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaana wararku qaar ay tilmaamaan in madaxda ugu sareysa Somaliland ay ku lug yeeshaan soo xulista xildhibaanada iyo xubnaha kale ee ku matala dhanka federaalka, hase yeeshee bulshadoodu ay ka gadaan arrimo la xiriira inaysan taageersanayn nidaamka ka jira dhanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawade hadda nagu cusubtaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laakiin waa inuu muhiim daawadayaal waana ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.